Manchester City ayaa si xoog leh ugu soo laabatay iyadoo 3-1 ku garaacday Newcastle kulan ka tirsan FA Cup-ka oo ka dhacay garoonka St James' Park, taasoo u sahashay inay gaaraan wareegga sideed-dhamaadka kwaatar-finaalka. Harvey Barnes ayaa Newcastle hoggaanka u dhiibay. Newcastle ayaa si fiican ku bilowday ciyaarta. Harvey Barnes ayaa helay kubbad uu soo dhiibay Sandro Tonali, kadib wuxuu ku leexiyay lugtiisa midig, isagoo kubbad qurux badan ku dhaliyay geeska fog. Savinho ayaa barbaro keenay. Manchester City ayaa cadaadis badan saartay Newcastle. Jeremy Doku ayaa soo korhoosay kubbad xoog leh, waxayna taabatay Savinho oo kubadda ku riixay shabaqa. Omar Marmoush ayaa City hoggaanka u dhiibay qaybta labaad. Matheus Nunes ayaa kubbad u dhigay gudaha xerada ganaaxa, halkaas oo Omar Marmoush si deggan u maamulay, kadibna gool ka dhaliyay meel dhow. Marmoush ayaa mar kale dhaliyay. Wax yar kadib, Marmoush ayaa dhaliyay gool cajiib ah oo meel ka baxsan xerada ganaaxa ah, kubbad xoog leh oo uu tuuray, taasoo uusan qaban karin goolhaye Aaron Ramsdale. Omar Marmoush ayaa noqday dhibaatada ugu weyn ee Newcastle, isagoo hadda 7 gool ka dhaliyay 6 kulan oo uu ka hor yimid. Arsenal ayaa si dirqi 2-1 uga adkaatay Mansfield Town kulan xiiso badan oo ka tirsan FA Cup-ka, taasoo u suuragelisay inay gaaraan kwaatar-finaalka. Noni Madueke ayaa Arsenal hoggaanka u dhiibay dhammaadka qaybtii hore. Bilowga qaybtii labaad, Will Evans ayaa u barabareeyay Mansfield kadib qalad uu sameeyay ciyaaryahan 16 jir ah. Ugu dambeyn, Eberechi Eze ayaa dhaliyay goolkii guusha, isagoo ka soo kacay kursiga keedka. Xiddiga kulanka Eberechi Eze goolka guusha, Noni Madueke gool muhiim ah qaybtii hore. 2 ciyaaryahan oo 16 jir ah ayaa bilaabay ciyaarta. McTominay ayaa noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar Arsenal ee FA Cup-ka ciyaara. Liverpool 3-1 Wolves FA Cup-ka. Liverpool ayaa si awood leh ugu gudubtay wareegga sideed-dhamaadka kwaatar-finaalka ee FA Cup-ka kadib markii ay 3-1 ku garaaceen Wolves garoonka Millernocks. Andy Robertson ayaa furay goolasha Liverpool isagoo meel fog ka toogtay daqiiqadaha hore ee qaybta labaad. Mohamed Salah ayaa si degdeg ah ugu daray goolka labaad wax ka yar 2 daqiiqo kadib. Curtis Jones ayaa ciyaarta soo xiray, isagoo dhaliyay goolkii saddexaad daqiiqadii 77. Hwang Hee-chan ayaa Wolves u dhaliyay gool raaxo ah waqtiga dhimashada. Liverpool waxay si buuxda u maamuleen qaybta labaad ee ciyaarta. Robertson ayaa muujiyay inuu weli door weyn ka ciyaari karo kooxda, isagoo dhaliyay gool cajiib ah isla markaana caawin bixiyay. Liverpool 3-1 Wolves. Salah iyo Robertson oo hogaamiyay Redska.